anu kaama duuban iyo adiga iga duubay iyo inadayga tahay kuma qabin waxay ahayd sheeko mar hore socotay balse iminka waxa soo baxay cod sira oo labadoodu uga hadlayaan midkii soo dhigayna deeyo iska cadahay bal saaxiibeen wada dhageysano maxaa leeyahay ma iga subiyo maxaan iga sheeg way safiya ma beentii habla yar sheegana baad nasiis xalay markaa way uuna ma tan iyo shalay markii codadkan sirtii soo baxeen waan ka aamusnay oo dhigta ayaan kala soconay kaliya balse saaka oo jimco ah maalinta la cibaadeysanaya ayay damiirkaygu saamix way inaan ka aamusno arrintan waa arrin iska cad Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise codadkan ayaa dhex maray Safiya dhowr hadal bay ku kala hadashay Cabdi Ciisena dhowr hadal buu kala hadlay balse waxa waa qorshe isla ogaayeen iyaguna iska faafiyeen magac ma ku raadsanayeen fufiyus bal aan si wada dhageysano ilaa waxaan ku lahaa anigu ka hadalay ugu lahayd waan ka hadlaya waxaan aan shaqo ku lahayn bay heeday haddana ma walaal ma hadafkaagii horan ba si xoojisay una macaan Safiya So what do you want me to do marka yeah ربطاني صحيح adigu sidan maxalkaad waa kasimiyaa walaal bal soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadine hadalkaygu inuu sidee noqdo baad rabtay anigu ma qabish baan ku diray walaal iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu Soomaalidu waxay tiraahdaa fulaxantiisa ma moogo Safiya Tusmo hadalladaada is dhaafka amba mid iyo nooca ah kolka horeba Soomaalidu ka shakisnayd Cabdi Ciisena markii uu yimidayba ilaa markii uu horeeyay soo hadlay wuxuu kala istifaacid maantana wuxuu banaanka soo dhigay codadkaagii oo dhameystiran taasoo cadeyn isaga u noqotay inuu bari yahay had waxan aad u sameysanaysay balse waxa loo baahan yahay oo la sugayaa waxyaabaha aad isku difaaci doonto iyo waxyaalaha arintan kaga falcelin doonto taas ayaa muhiimad u tahay bal imikana waxaan sii wada dhageysanayna kale clipkan inayna shaqo ku lahayn waxaynu inagu ognahay waxa anigu ogahay waxa aanu mid yaani inaana shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisna way ogeed inaad waxa ka hadasho ma ujeedayno hayda arrimahan kale uu maxayna si dhexgeliyo macaan su'aasha la weydiiyay baan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay adiga faanisay markii hore wada soconayba hogaa baan maqli jiray farxaan diraaco hogaa daadi baa dhawaaday Safiya haddaad ogay inuu ka bicay markii horeba oo wala socoteen maxaad intaas oo dhan baa iska xijinaysa qof dameerna miyaan dahayn gabar Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ku dhahan tahay oo waxaas raga Soomaali jooga miyaad mid kale gacanta qabsatid maxaa Cabdi Ciise ugu qanahay hadduu markii hore ka bicay oo hawiil yar dhalinyar oo waqtigiisa la ciyaaray markii horeba كمية أنا واحد شيء كمان أنا أي نساني والغلط أنا واحد فعندي دنا تريد قبل دم واقبي وأنا كنت تكني إما كان واقع لدماني وقت فرح أنا قالا أنا كان واحد بيجي هاي أنا واحد لكن you don't want it شيء كذي أحسن واحد ملحي ولا المعان مركز أنت كادوني تاسع هنا وان قبائله wiilka Cabdi Ciise wuxuu leeyahay inaan wax qabaayado waa ugu si taagan yahay iyaduna waxay leedahay intaasan ka doonayna inaan talawadan qaba wanaadeen haday wax yar idin dhex mareen deedo faaxisho ah labadiina de ilaahay uga toobad keena iminkana wixii oo dhan de Soomaalidu kulli hadalka si wada waday iska si wado kulli de wax badan wadamigiina had gashan naga jafaysaa iska ilaawintaan ما أنا قاعد أسوق سمكة أنا بقول له وان قبائل ما يا كنت جرشة تمشي لطمة تبغى أنا يروح أقبل بيسوي بساطة صلي عيني في الميديا أوكي أنا قال لي عيني أدلك معيني سوونا معا ما أنت قرأتي عقوبة هذه ما أنت عيد تنجم كبحي وحين الحمري واحد حدني يالينا وذوقتها ولا المعان إما كوا وحويا هذا أنا بسميه كل فرح قاد خاصة بعد القومة هذا دون تصاح هذا لو ما نسلت مدينة هذه كله وحويا هون معان ده وحن قرن كرو كلام جرت تسد السلام يا هون معان هاي سلام أنا قاعد أسوق sheekadii waxa ku soo gabagabootay waan ku salaamayaa iyo hay istilaamin arintii way dabaqday Soomaalida iyo taala oo kala doonta imikana waxaan idin leenahay fadlan YouTube-keenaga Cabdildeeq subscribe sar Facebook page-keena Cabdul Xuseen like sar sina share garee waad mahadsantihiin